in badan baahidii gobolka iyo wixii la tabeeyo dhammaa laga sheegay waa la yidhi aad baa loogu dheeraaday anu waxaan jeclay inaan hal qodob uun ka hadlo halkaa qodob waxa weeye shirkan ujeedadiisu wuxuu ahaa ama seminaarkan ama workshopkan wuxuu ahaa macnihiisu in dhalinyarada lagu dhiirigeliyo ama lala tashado waxqabadka gobolka loona tuso loona sheego halka dowladda iyo maalinkan maanta muxuu ahaa dowladda wax u marayaan oo ay si ay waaxi ugu noqdaan ama ka digtoonaadaan beeraha badan ee la shugo ee aad ka warhaysaan halkan gabiley runtii fiiro waa la yidhi gabiley waa hooyadii qarankan somaliland gabiley waa dhashay waayo markii la baadi doonaya halkii laga bilaabay weeye marka hooyadu ilmaha way xanaanaysaa way ilaalisaa way dhowrtaa xumoo dhan bay ka dhowrtaa si uu koru kobco adigii inaga ahayd baryahan dambe dhallinyaradeenna waxaa la soo dhex galay wax ayaa soo dhex galay inay u muuqdaan hooyadii qarankan kuwii sameeyey kuwii horay kuwii maalinkan maanta markii la baadi doonayey ka dhiidiyey ee ka dagaalamay inay u muuqdaan inay hooyadii qaranka yihiin dhalinyarada reer gabiley waa loo baahan yahay haddii kale dee waxay noqonaysaa reer moobiyaa kule nin wuxuu ahaa iyo wuxuu galo iyo wuxuu gudo aan garan baad noqonaysaa waxaan idinku boorinayaa inaad ogaataan kaydin xiilaya iyo kaydin hoolhoolaya inaad kala ogaataan inta beenta loo sheegay waa inta kaliya naga maqan waxaa loo baahan yahay inaynu nidhaahno waaynu ku nidhaa war beenta naga jooji beenaala tahay tuug baa taynan ku nidhaahno waayo wuu ku saraynayaado inanka halkan ka hadlaa ee waxaan jirin sheegaa dee aduu ku saraynayaado midhahaagii iyo maalinkan maanta waxaad ahayd iyo waxaagii oo dhan boqonaya bilgaagii iyo sharafkaagii u koronaya halkan maanta wata waxaan maqlayay daktarka kalabay laga dhisay ee dowladdu soo jiiday in lagii lacagtiisii waa la cunaa lacagtiisii waa la cunay baa layidhi qoladii ku deeqday uu ahaa madaxweynaha dowladda Jabuuti ayaa maqlay TV-ga iyadoo leeyahay waa la cunaa way muraadilaa markii way soo hadleen lacagtii waqti dowladda la soo shubay daktarkiina waa la bilaabayaa laakiin waxaa loo baahan yahay ninka wax kugu deeqay wax ku siinaya haddaad dhegihiisa ku rido waxa sidaasoo kale ah dee cid wax ku siinaysa iyo cidku muxuu ahaa daraynaysaa midna ma jirto marka waxaan odhan lahaa waa dhalinyaradu hay silaaliso ha ogaato inay mustaqbalkooda bahan yihiin inay annagu waan iska soconay inay madaxda badi yihiin inay mustaqbalkooda iyagu leeyihiin inay dhistaan way hareeraha ka joogaan oo wixii xun ay ka hadlaan oo aanay u ogolaan ka waxaan jiri sheegaya ee beenaalaha ee afmishaarka ee tuuga waa ka warhaysaanoo xukuumaddu ka dhega nugul ummadda reer gabiley inaway soo maray habeen iyo xiraar waayo axmed oo xukumaa xukuumadda dee waa ninkii qalbi macalin ka seexanayay ee ka dagaalamayay waayaha gabiley u yaqaanaa gabiley waxay guddiye waxay ishaba u yaqaanaa gabiley marka la soo qaado ilaahay baa ku dhaartay waad yaabaysaa haddaynu ugu abaalguddo ninkii caynka ahaa maalin walba afkiisaraalka ka hadlo maalin walba inayado waxba ogeyno 20 sano aan gaadho wixii loo soo maray wixii dalkan loo maray aan ogeynin halkan ka caytamo oo idina dhegaysataan soo ceebka mooda qabtaan waa ceeb gabiley sharaf bay leedahay milgay leedahay taariikh bay leedahay inaan taariikhdeena iyo milgeena ilaashano waan hareeraha ka joogno haddaan duruufo kala iman kaaliga ayay inagu soo haysaa madaxweynaha macid bay naagayeynaa aad u dhah